waa qiso xaqiiqo ah oo dhex martay laba gabdhood oo ku nool dalka Faransiiska. Labadaa gabdhood oo ku kulmay suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada Baariis. Midkood midka kale wuxuu kala kulmay wuxuusan filayn. Midi waxay ahayd gabar Faransiiska u dhalatay oo muslimad ahayd, midda kalena waxay ahayd mid asalkeeda ka soo jeeda waddamada bariga dhexe laakiin Faransiiska ku kortay. Midi waa muslim oo midda Faransiiska u dhalatay ayaa muslimad ah, bariga dhexe tan u dhalatayna muslimad ma ahan. Qiso aad u qiimo badan oo gabar kastoo muslimada ay ka faa'iideyso ayaa ku jirta. Gabadha muslimadda waxay xirnayd dharkii sharciga uu amray inay xirato oo xijaabkii iyo asturkii ah. weliba xataa waxay xirnayd indha shareer oo si fiican ayay u asturnayd. Suuqaasay ka tukaameysanaysay oo alaab ka gadanaysay. Markay alaabtay rabtay ee suuqa ka rabtay isku soo duwatay ayaa waxay timid meeshii lacagta lagu bixinayay si ay u bixiso alaabta ay wadato lacagteeda. Meeshaas lacagta lagu bixinayay maqsinka waxaa taagnaa gabar kale oo u eg inay qaawan tahay. iyaduna meesha waxay u taagnayd si ay lacag u bixiso oo alaab bay suuqa ka gadanaysa. iyaduna waxayna ahayd mid aan asturnayn oo safkii ayay soo gashay. tii aan muslimadda ahayn ayaa fiirisay gabadhan muslimadda ee sida quruxsan u labisan ee jirkeeda asturtay, ayadoo ku jeesaysa ama yasaysa dalkan bay tiri oo Faransiiska ah iyo guud ahaan Yurub mashaakil iyo dhibaatooyin baa ka taagan. mashaakisha iyo dhibaatooyinkaasoo dib noo celinaya horumarka naga hor istaagaya. kuwaasna waxaa ka mid a bay tiri haweenaydan dharkay xiran tahay, iyadoo haweenayda muslimadda farta ku taagaysa ayaa waxay tiri xijaabkan iyo dharkan ay xiran tahay waa dib u dhac iyo horumar la'aan, waana dhibaatada ka jirta Faransiiska iyo guud ahaan Yurub. hadalkay ku dheerayso waxay tiri annagu dooni mayno dad dib u dhaca sida adoo kale ee gabar yahay waddankaadi ku noqo. xijaabkan aad sheegaysiinna waddankaadi ku xidho, annagana nagala fogow dib u dhacaada iyo horumar la'aantaada. iyadoo hadalka sii wadata tii aan muslimadda ahayn ayaa waxay tidhi xijaabkan iyo indhashareerkan waa dib u dhac soo wajahaya Yurub iyo Faransiiska. gabadhii muslimadda waxay soo fiirisay haweeneyda hadlaysa ee jaahiladda ah. niqaabkii iyo indhashareerkii qabtay iska bixisa, wejigeeda ka fayday. waxay tiri showmiddaani foolxumo ay leedahay bay qarinaysaa, laakiin waxay aragtay haweeneyda muslimadda inay tahay inaysan jirin gabar ka qurux badan. aniga dadkaad mooday ma ihi. anigu waxaan ahay gabar Faransiiska ku dhalatay laakiin diinta islaamka qaadatay. aabbayaashay iyo walaalahay iyo awowayaashayna Faransiiskay ku dhasheen, waa reer Faransiis. waddankan Faransiiska ayay ku dhasheen, asal iyo faracba Faransiis baan u dhashay. kan weeye waddankayga. diintayduna waa midda aan haysto ee xijaabka ay amraysa, waana ku faanayaa waana haystaa. adinka weeye diintiinni waxay iibsaday iyo akhlaaqdiinni adinkoo isticmaalaya magaca horumarka iyo ilbaxnimada. marka diintiinni baa ina ka soo gadannay. dabcan haweenaydaas muslimad bay ahaan jirta asalkeeda. marka diintaadii adigu waa ka tagtay, annagaa qaadannay. leanna waxaa ognahay islaamku inuu yahay diinta karaamada iyo horumarka iyo ilbaxnimada. diinta islaamkay tidhi waa diinta nolosha wanaagsan ee deganaanshaha ee adduunka iyo aakhiradaba kugu siinaysa. marka anigu waxaan haystaa diintayda waxay amrayso, waana ku faanayaa mana ka khajilayo inaan xijaabkayga iyo indhashareerkayga xirto. ee adigu meeshaan iskaga tag, ka tag waddankan Faransiiska. adugu maada dhalane, anaa u dhashay, waddankaadii ku noqo. haweenayda waa khajisha. marka waxayse filayn baa u soo baxay haweenayda qaawanayd. waxayna ogaatay oo dareentay inay hadal khalada markii hore ku hadashay oo gabadhan iyadu ay daandaansatay oo ka gardaran tahay. meeshii bay ka tagtay iyadoona hadlin oo weji gabaxsan oo indhaha qarsanaysa. meeshay iskaga carartay. ilaahay baa yidhi fabuhita aladii kafar, wuu wareeray kii aan waxba ogeyn. marka ujeeddada qisadan u soo qaadanayna waxaa weeye gabar kastoo muslimad ah ee dunidan guudkeeda ku nool, waddankay doonaysaba ha ku noolaatee, waxaa la doonayaa diinteeda inay ku faanto iyo dhowrsanaanteeda. quruxda islaamkana inay laasimtaa muhiima, inay is-asturtaa muhiima, sida xaqa iyo runta isku asturto. aysa ka khajilin jirkaada inaa asturtid baa la rabaa, saysan rag u arkin ruwaayada ah haweenayda aan is-asturin ee jirkeeda muujisay iyo cawradeeda. taasaa la rabaa khajil inuu ka muuqdo oo waxay samaynayso inuu foolxun yahay inay dareentaa la rabaa. leanna jirkeediiba rakhiis ka dhigtay say ragga iyo yeyda u arkaan, xaq la'aanna ay ugu arkaan. rabbigeen tabaaraka wa tacaala adduun iyo aakhiraba hana asturo.